بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناكسن صاحب بيال هلكن وحولك وررك كسو دوادا ورك حولك وررك قضبضا داوان دونتان وحاكمدا شركي قلاها واتشيك قرن ومالنتي لحاد كقبصومي مقدشو قضبو مهم ودنعيدو اسكو افقرتين ميدوغا مرشحين معارض كو لو يري هي حكت كو قدام شركة سايا داوان دونتان دولة الصوماليين عدادس بلارن كدب واحد دب وفسح دا استعمال كترمينال كدياردها هذا عدة كده حيالا سببت محيطة وانديسو قد بدونا صاحب بيال إمارات كعربت تلابدي وكقادر يتروتار الروبلان وحا ودري يكون سياسة وقودهم بدالك اللي قدر يمي فرماتي الروبلا حالة دودا ينبسين عصب كسي شبطي فافاين ديرادا يتكو داوان دون تاورك النصاحب بيال مامل كبتران وحي قعنتا كل ديجين شبكة دادك كتهريبين جرتي ديجان لدى مامل كاسي سببت محيطة وانديسو قد بدونا kuuriyada koonfureed 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkooda ay iska joojiyeen in dalkeeda ay socdaal ku tagaan sababtana way cadeysay maxay tahay waa daawan doontaa saaxiibayar qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka xulka wararka fadlan hadii aad nagu cusubtaan nagu soo biiro subscribe saar like da share la wadaag saaxiibada aragtadana waa inoo muhiim komatiga nagu reeb waxa naga xasuusina hadii aad joogto waqtiga salaada inaad soo gudato waajibka rabbi kadibna dib ugu soo laabato daawashada muuqaalkan qodobadii aad daawateen oo dhameystiran u diyaar garooba aynu ku bilowno shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maalintii lixaad ka qabsoomay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo dhinacyaduna isafgarad ay gaareen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa maalintii lixaad gudoomiyay shirka u dhaxeeya xubnaha golaha wadatashiga qarankaas oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho shirka oo ka qaybgalkiisa ee Muqdisho u joogaan hogaamiyaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Jubbaland Puntland Hirshabelle iyo Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Naduqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa looga arinsanaya marxaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha doorashooyinka cabashooyinka ka soo laabtay doorashada amniga guud ee qaranka iyo tan doorashada iyo qodobo kale shirka oo maalintii shalay oo Jimco ahayd laga nasta ayaa qabsoomay habeenkii xalayto waxaana la sheegay in dhinacyada habeenkii xalay ay ka gudbi waayeen arrimaha amniga ila xogogaal ayaa inoo sheegay in ra'iisul wasaare Roble mar kale uu la soo shirtiga qodob ahaa in la bedelo taliyaasha ciidamada qalabka sida taas oo garab dheer ay ka istaageen hogaamiyaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug intaas kadib dhinacyada ayaa u ballamay in guud ahaan qodobka amniga shirka iyo kan amniga guud ee qaranka laga tilaabo isla mar ahaantaana habraacyada doorashada iyo doodaha laga qabo maanta laga doodo maanta oo maalintii lixaad ahayd xerada afisyoone ee xindaabka garoonka aadan cadana xubnaha isugu yimid waxay ka doodeen habraacyada doorashada waxaana sida la sheegay dhinacyada safgarad dhameystiran ay ka gaareen shirkoodii maanta intaas kadib dhinacyada ayaa ku ballamay in maalinta biritaan loo yeero xubnaha golaha midowga murashaxiinta mucaaradka si loola turxaan bixiyo doodaha adag oo ay ka qabaan kuraastii soo baxay dhinacyada qaarkood ayaa wada qorshe ah in lagu celiyo dhammaanba kuraasta dooda laga keenay ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka dhinacyada kale arrintaasi aad kaga cagajiidayaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo dood adag ay deegaanadooda ka jirto ayaa la ogaaday inaysan aqbali doonin inay ku celiyaan doorashada ay qabteen sidoo kale xubnaha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaan qudhooda diyaar u ahayn ku celinta taas oo muujinaysa inaysan dhici doonin in kuraastii soo baxay dib loogu celin doono hayeeshee laga arrinsan doono kuraasta xigta lama oga tallaabada midowga murashaxiinta mucaaradka arrintaas ay ka qaadi doonaan iyo waxa ay ka dhihi doonaan inaan lagu celin kuraasta ay dood adag ka taagan tahay ay ku soo baxeen qaar ka mid ah xubnaha hadda ku fadhiya uu ka mid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar agaasimaha kusimaha ninka ka afaa waa taliyaha kumeel gaarka ah ee nisa ninka lagu magacaabo Yaasiin Faray kuwaas oo dhammaantoodba kuraastooda ay doodo adag ka jirto taasi tallaabada xigto laga qaadi doonana su'aalo dhowr ayaa ku gudban balse waxaa la ogaan doonaa midowga murashaxiinta mucaaradka iyo tallaabada arrintaas ay ka qaadi doonaan dhinaca xiga markaan eegna saaxiibayaal dawladda Soomaaliya iyo dib u fasaxday in qaramada midoobay iyo xubnaha beesha caalamka isticmaalaan terminalka garoonka aadan cadde toddobaadkii hore wareegta ka soo baxday wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu hakiyay guud ahaanba in la isticmaalo terminalka tallaabadan waxaa qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya oo joojiyay in terminalka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada caasimadda ah Muqdisho ay isticmaalaan xubnaha beesha caalamka xafiisyada qaramada midoobay xubnaha ka howlgala iyo dhinacyo kale hayeeshee tallaabadaas waxaa ka daba yimid wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo sida la tilmaamay dalbaday in xubnaha loo fasaxo isticmaalka
arrintan waxay ka timid cadaadis culus oo ka yimid xubnaha beesha caalamka kuwaas oo dalbadeen sida ugu dhaqsiyaha badan loo fasaxo isticmaalka terminalkii ay ka isticmaali jireen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lama oga madaxda sare ee dalka iyo go'aankooda arrintan la xiriirta ayeeshee waxaa la tilmaamay in tallaabadan ay ka dambeysay cadaadiska sii kordhay ee ka yimid xubnaha beesha caalamka warkayga ayaa duuleysha ku haysaana saaxiibayaal qodobka xiga markaanu eegnana guux xoogan ayaa ka dhashay tallaabadii uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ku fasaxay ama uu dib ugu fasaxay inay lacagtooda qaataan dowladda imaaraadka carabta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer maxamed xuseen roble ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalayta la wareegay gargaar ka yimid dowladda imaaraadka carabta taasoo loogu talagalay u gurmashada dadka abaaruhu ay ku habsadeen ee ku sugan gobolada dalka ra'iisul wasaare roble ayaa munaasabada la wareegidda agabkan waxa uu ka jeediyay hadal uu ku sheegay in dowladda imaaraadka carabta dib loogu celin doono lacag horey loogu qabtay garoonka aadan cadde oo dowladda Soomaaliya ay gacanta ku haysatan iyo bishii Abriil sanadkii 2018 intaasi kadib guux siyaasadeed oo culus ayaa durba ka dhashay tallaabadaasi waxaana si weyn u soo dhaweeyay xubnaha mucaaradka oo tallaabadaasi ku tilmaamay mid guul ah oo wanaajinaysa cilaaqaadka Soomaaliya ee la leedahay dalalka dunida wareegta ka soo baxday xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay tallaabadan waxaana xigtay wareegtooyin gaargaar oo ay soo saareen xubno uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud mahad maxamed salaad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xubno kale oo dhammaantoodba mucaaradka kuwaas oo tallaabadan bogaadiyey dhinaca kale wareegta uu habeenkii xalayta faafiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya cabdirashiid maxamuud xaashi ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu bangiga dhexe ogeysiiyey inaan lacagtaasi laga bixin karin iyada oo loo sameeyey in ay soo qabteen laamaha ammaanka isla maraantana aan la ogeyn sababta dalka loo soo geliyey guuxaysa sii taraya arrintaasi ka dhashay ayaa weji kale u yeelay marxaladda siyaasadeed ee dalka waxaana sidoo kale uu biyo kulul ku shubay isaysadkii u dhexeeyay madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble imaaraadka ayaa hormuud u ah wadamada carabta ee galaangalka xoogan kula arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaana si gaar ah khilaaf xoogan iskala dhexeeyaan dowladda deriskeeda ee Qatar kuwaas oo aad isugu garbiyaan siyaasadda arrintan ayaana weji kale u yeeshay iyadoo haatan sida la aaminsan yahay uu sii kordhi doono khilaafka farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble dhinaca kale markaanu eegnana maamulka Puntland waxay gacanta ku dhigeen shabakad abaabulan oo dadka ka taariibin jirtay deegaanada maamulkaasi laamaha ammaanka maamulka Puntland ayaa soo bandhigay shabakad abaabulan iyo dooni ay wateen oo sida la sheegay dadka shacabka ka taariibin jiray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari shabakadan oo la soo bandhigay ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bari waxa uu sheegay in ay u abaabulnaayeen inay daaburaan dadka iyaga oo geenaya dalalka kala duwan ee dunida isla maraantana lacago kala duwan ka macaashi jiray waxa uu tilmaamay in tallaabadan ay tahay mid sharci darro isla maraantana ay sharciga la tiigsan doonaan waxa uu qeexayna la aqbali karin in dadka rayidka laga barakaciyo dhulkooda iyaga oo loogu sheekeynaya in amni darro iyo dhibaatooyin aan jirin ay ku soo food leeyihiin sidaa daraaddeedna waxa hoosta ka xariiqeen la qaadi doono tallaabo walba arrintaasi lagula dagaalamayo Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay gobolka Bari ku soo bandhigaysay tagaasile ee sheegtay inay barakacinayeen dadka hubsi sharci darro loo soo geliyay magaaladaas iyo qodobo kale kuwaas oo dhammaantoodba loogu soo gambaday dagaaladii u dhexeeyay maamulka Puntland iyo ciidamada BSF ee dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyadoo haatanna xaaladda magaaladaasi weli ay cakiran tahay gabagabada ku sii dhawaanaynaayay kuuriyada koonfureedna saaxiibayaal waxay kordhisay xayiraadda socdaalka 6 wadan dalal ay Soomaaliya ku jirto dadkooda kuuriyada koonfureed ayaa kordhin doonta xayiraadda socdaalka 6 wadan oo ku yaala bariga dhexe iyo Afrika oo sidoo kale laga shakisan yahay wili ay ka jirto halista cudurka faafa ee corona iyo arrimaha amni xumo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay jimcihii mamnuucida la qorsheeyay inuu dhaco Janaayo 11 dalalka xayiraadda lagu soo rogay waxaa ku jirta Soomaaliya waxaana sidoo kale ka mid ah Iraq, Suuriya, Yemen, Liibiya, Afghanistan iyo gobolka koonfureed ee jasiiradda Philippines, jasiiradda Zamboanga, Zulu, Brazilian, Taiwan iyo kuwa kale sida ay sheegtay wasaaradda dalalka la magacaabay ayaa waxa soo food saartay qatarro joogta weerar argagixiso iyo xasilooni darro siyaasadeed kuwaas oo soo dadajiyay in guud ahaanba dowladda Kooriyada Koonfureed iska hakiso وسفرت العراق سوريا صوماليا أفغانستان أيام لكم ممنوعي تانية لبكم تضبطي سيول وحنا أي ممنوع ذو كله يمن لبكم كوية تبكي ليبيا أيام ممنوع لبكم أفريقيا تمن هلك الجزيرة الفلبين لما قعابل لبكم شن يتبكي جودان وركي كده ونسين وربعين تحولك وررك وأنا جاي تزاحب يعرفنا هذا نقول سبتان نقول صابير وسبسكرايب صار لايك ده شير لو ده صاحب هذا ركزاتنا ونامي كم تيجي نقول التاني كل